shaqaaqada garoonka dhacday waxa weeye beel kamida beelaha degmada Caabudwaaq oo xoogaa ay ka yara gadoodsan habkii maadaama ay hab qaybsigii ay wax ka waayeen xubnihii golaha deegaanka taasa waxay sababtay inay garoonka yar tagaan haddana xalkoodii waa lagu jiraa garoonkay tageen marka kadib maxay sameeyeen garoonka horta wada utay waa meelaha public ah oo dawladdu ay iska leedahay markii beeluhu saasoo u gadoodaana waxyaabaha maadaama systemka wax dhisay system dawli yahay ayagoo taa ka gadoodsan raba inay indhaha dawladdu ay qabtaan ayay tagaan meelaha public ah haddii laami u mari lahaa ay xirtaan waxyaabaha noocaas way ka dhacaan deegaanadan marka waxay sameeyeen inay garoonka tageen ay dhaheen maadaama inta aan ka helayno xuquuqdayada waxaan rabnaa inaan meeshaan socod uusan ka jirin taasna waa mid ay rabaan inay ku xanibaan in socodka si ishu weyn u noqdo loona xalliyo tallaabadaas ma ku dhaqaaqeen marka way ku dhaqaaqeen laakiin hadda already waa laga shaqo galay oo odayaasha guurtida iyo dadka soo jeclaha magaalada hawshaas hadda xalkeeda ku jira insha Allah waxaan rajaynaynaa hawshaas inay maanta ku ekaato oo la xalliyo haddii la yiraahdo waxaa sheegtay in maleeshiyaadkaas ay ka careysan yihiin habka loo qaybiyey golaha deegaanka ee degmadaas Caabudwaaq sidee marka hore u qaybiseen golaha deegaanka horta walaal markaan kuu sheego Caabudwaaq waa magaalada ugu baabileyshanka badan galmudug waxaana loo qaybshay hab ka jira halkan oo la yiraahdo nidaamka wax qaybsiga beelaha deegaanka halkan nidaamkaas wax qaybsiga wuxuu nidaam dhaqan ah oo bulshadana ay lahayd weeye sida la ogyahayna muddo ilaa iyo mataqaanaa 10 sano iyo wax ka badan ama burburkii kadib labadii ilaa hadda waxa la degmada in loo dhiso golo deegaan mar walbana waxaa caqabad ka imaanaysay habka loo qaybsanayo golaha deegaanka marka waxaa kala badan oo kala batay beerihii degayay meeshan iyo tiradii golaha deegaanka soo geli lahayd ayaa kala batay hadda salahan magaalada Caawda oo kale beeraha dega ilaa 40 beelood baa degtay marka loo fiirsho nidaamka ay magaca u bixiyaan 40 beelood oo mag bixisa ayaa degan xubnihii golaha deegaanka waa 22 xabo ama 22 xubnood oo hadda laba lagu soo daro 23 marka taa ayada waxay soo in beerihii qaar la yiraahdo xubnaha golaha deegaanka ay ka qadaan golihii deegaanka oo 23 ka mid noqon laakiin ayagana la yiraahdo lagu xaliyo xubnaha fulinta doonde oo imaan doona oo la soo dhisi doona hadii la yiraahdo markii aad soo dhiseen golahaas maxaad ku saleyseen si gaar ah waxaa lagu saleeyay nidaamka wax qaybsiga beelaha deegaankan ayaa lagu saleeyay marka soo ma ahayn inaad maleeshiyaadkaas cabashadooda dhageysataan oo aad ugu yaraan wax ka qabataan inta aanay cabashadooda ficil u bedelin ها way ahayd runtiina taas waxa loo qaban karay waxa wacyigelintaana muddo sanadaha ay soo socotay wacyigelintaas oo ahayd inaan dadka beeluhu aysan ku wada filayn waxan muhiimadu ay tahay golaha deegaanka asalku inay tahay xubnaha waxay helayaan iyo waxa beeluhu helayaan ee asalku yahay golaha deegaanka waxa uu noqon doono mashaariicdu uu dhali doono iyo sharciyadaas la dhisay waxa lagu heli doono taas waa wax dadka deeqa intaas waa la soo wacyigelintaas waa soo socotay laakiin hadda wacyigelintiina way gaaraysaa nina gaaray meesho ama waxa laga yaabaa wacyigelintii inay wixii wanaaga ahaa la rabay inay ay ka salamarto cabdifadii beelaha dhexdooda ahayd marka taasa keentay sida caadigaana deegaanadan gobolada dhexe waxa ku badan cabdifada qabaliga ah aad bay u sareysaa heerkeeda marka waa la soo wacyigeliyay dadka waa la soo shiray waxaan ka rabaa inaan kuu sheego si taa looga hortago waxa ay lahayd degmadaanu odayaasha dhaqanka guurtida la soo shiray oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka isugu la soo shireen waa la soo hadlay way soo ansixiyeen xildhibaanadii state-ka la hadlay oo hawsha shaqada ku jiray maamulka degmada ku jiray dhamaantana waxaan rabnay inay wax noo dhismaan marka waa la soo wacyigeliyay dadka waa la soo hadlay laakiin hadda wixii loo soo sheegay dadkii ma wada qaadanayaan ama sida u sidbanayaan hadda insha Allah waxaan rajaynaynaa in intaas la xalliyo hadii la yiraahdo waxaad ii sheegtay in maleeshiyaadka careysanaa ee maanta garoonka yimid xaalkooda hadda lagu guda jiro maxaa socda oo arinta lagu xalinaya waxa lagu xalinaya dadku cirka kala imanin dadku dadkay ka dhasheen deegaanka waa la wada leeyahay deegaanka u dhasheen waxa la rabaa mid koowaad oo aan halkan u marnaya waxa la rabaa inay u naxaan dadka iyo deegaanka waxa la jirtay qoraal la yiraahdo dad gorod diidan tahay ku koob diritaada gorod annaga gobolku ka yimid xaqiiqin xargaha hajan hagoon waxa la isku yahay waxa la rabaa meeshan garoonka ah waxa laga qaadaa hooyada rabta istaal qofka naga xanuunsan kan soo dabiyo degmada imaanaya waa access weyn maadaama dhulkii u dheer yahay laga soo galo marka ma sixirnaan karto waxaan rabnaa ayadoon gacan dawladeed iyo mataqaanaa qasab loo marnin dadka si xal ah oo khiyaarnimo ah in ayagana wax loo fahansiiyo ayagana wax u fahmaan kadibna insha Allah xalka la gaaro